السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولا ريال كلمة كوبا إن شاء الله تعالى وكسابسا weynida qur-aanka iyo qaabka aynu ula noolaan karno maadaama aynu ku jirno bishii barakaysneed ee shahru ramadaan, bil ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doortay oo bilaha kale rabbi subxaanahu wa tacaala uu ka fadlay maadaama ay tahay, waxaynu wax iska xasuusin doonaa in sha allahu caza wajalla qur-aanka iyo fadligiisa iyo weynidiisa. inta aanan qur-aanka u gelin, bisha aynu ku jirno tobankeedii dhexe aynu hadda marayno, waxna inoo dhiman yihiin. waa bilaha ugu sharafta badan ee rabbi subxaanahu wa tacaala uu doortay. bishaas wixii tegay waa tegeen, inta inoo dhiman inaynu ku mitidno oo aynu ka fara buuxsanno oo aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala la kaashanno ayaa runtiina saaran. qofka mu'minka ah bishani waxay u soo gashaa isagoo aada xiiso badan u haya khayrka iyo wanaag fara badan inuu qabsado. haddii aanu taa ku darin isticaanada iyo kaalmaysiga ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala uu kaalmaysanayo, waxaa halkaa ka imanaya runtii gaab aada iyo aada u weyn oo nuqsaan ayaa qofka ku dhacaysa. marka mar walba khayrka iyo wanaagga qofku uu garanayo, ku camalfalka uu ku camalfalayo khayrka iyo wanaagga alla kaashto ilaahay subxaanahu wa tacaala isticaanadiisa iyo xuska ilaahay. iminka tusaalaha inugu dhow salaada aynu hadda isugu nimi ee casar, mu-adinkii markuu adimayey waad maqlaysay maan filaya kelmadii cajiibka ahaa markuu dadka isugu yeedhayay, wuxuu ihi xaya cala asalaa, war salaada xaggeeda u kaalaya, xaya cala alfalaax, liibaantii u kaalaya. maxaynu ku jawaabaynaa markuu qofku ka daba akhriyayo? muxuu isna odhanayaa qofku? muxuu odhanaya xaya cala asalaa isna? laa xawla walaa quwata ila billah. yacni ilaahay ow salaada aad igu baaqayso ee mu-adinku uu dadka ugu baaqaya ee uu leeyahy war salaadii u kaalaya, war liibaantii u kaalaya, haddii ilaahay awood iyo xoog iyo xiilad iyo tab aan ku tegi karo rabbi ow haddaanad isiinin ma tegi karo wayaan macnaheedu. laa xawla walaa quwata ila billah. sida kelmaddaasi ay u culus tahay waa kii nabigu calayhi salaatu wasalaam ku lahaa saxaabiga abu muusa alashcari, yaa cabdallaahi bna qays, alaa adulluka calaa kanzin min kunuusi iljanna, ma ku tusiyaa kanzi ka mida kunuusta ama khasnadaha wax weeye jannada. laa xawla walaa quwata ila billah, waa kanzi dhan oo ka mida kunuusta jannada. waana qofkii awooddiisii ka beri noqonaya. ilaahay ow anigu awood melihi, ilaahayow xawl iyo awood iyo quwad melihi, mid adigu ilaahay o adaysiisa mooyaane. sida awgeed walaalayaal, khayraadka iyo wanaagga aynu doonayno inaynu qabsanno, aynu samayno, waa in aynu ku darnaa inaynu ilaahay kaalmo weydiisanno subxaanahu wa tacaala. oo khayrka iyo wanaagga aad doonayso inaad samayso aad ka hormaridaa laa xawla walaa quwata ila billah. ilaahay ow anigu awood uma lihi, rabbi ow awood isii, xiilad iyo tab aan ku samayn karo camalkan ama cibaadadan ilaahay ow isii. taa markaynu ka gudubno walaalayaal, qur-aanku waa kalaamkii ilaahay subxaanahu wa tacaala, waa hadalkii rabbi uu soo dejiyey subxaanahu wa tacaala, waa mucjizadii ilaahay uu u doortay nebigii ambiyada ugu sharafta badnaa. ambiyada oo dhan marka la isku daro waxa ugu fadli iyo sharaf iyo karaamo badnaa nebiyullaahi muxamed sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalam. waa gallad ilaahay ina siiyey, inagumaynu dooran. qofku isagu xorriyad uma haysto inuu doorto inuu ka mid noqdo qowmu nuux
أما أكمد نقض قوم إبراهيم أما أكمد نقض قوم موسى أما قوم محمد صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى وحاو إنو دوري إن نكمد نقض من أمة محمد صلى الله عليه وسلم النبي قال له صلي عليه الصلاة والسلام والكستوم عيسى الله سوقاض كرامة إيه شرف إلهي وينسيي ويان كنتم خير أمة أخرجت للناس أمتي أقوى ناكسنيت باتين با إلهي إليه سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام بحكوري صحابة أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تضباطا أمضات بعد لما يستريسان آد حريسان آد قبينيسان إذن كا أوغو خير بدن أوغو شرف بدن أوغو كرامة بدن إلهي أكتيس ومد النبي محمد عليه الصلاة والسلام شرفتا سو إلهي الدوري سبحانه وتعالى ودب النبي جين النبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي والبا ربي وحسي معجزه تلكي يددكي سالله صادري أي كو يقين سنيان إنو يهي النبي حقه ودبا تصال أهان نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام إلهي وحسي معجزه معجزة لسي محي هيد حلسية دعادي سين لغا أقبله وطلكي مركي تدكي أي بينيين طوفان انت لغو صدره مركو هبارتمي يقول رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديارا سنكون نافلة إلهي وأكاقتك أرلضا تدكي وحويا عاصيي وحنا قطين طوفان لو صدره لو دهلاقه نبي الله موسى إلهي وحسين معجزوين لقوا قرنا إنه يهي محي نبي ونتمام دونا إن شاء الله وإنه قارد دونا نبي الله عيسى سلا سلك نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي معجزات والدورة وحنا قطي القرآن الكريم القرآن كهدي هبين بقى إنه مقلين لأنه كر آخريه إنه آخر سنة إنه إلهي يكرر معجزات النبي محمد عليه الصلاة والسلام بل وحنا ندول استاج دونا ولا ليال إلى تقريبا 19 qodob oo ku tusinaya weynida quraanka marka aynu garanno weynida iyo sharafta iyo miisaanka quraanku u leeyahay ayaa aynu garan karnaa ku dadaalista aynu ku dadaalayna qiimaha ay leedahay ajarka qofku uu ka helayo markaas qofku uu suraysan kara ugu horreyn walaalayaal kitaabkan quraanka ah Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku sifeeyay sifooyin iyo astaamo aad iyo aad u waaweyn إلهي وحكو سفيه إنه يهي العظيم اللي هي وينا أيا وحكو مقعابا القرآن كإنه يهي محي العظيم الله سبحانه وتعالى وحكو للنبي عليه الصلاة والسلام ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم النبي محمد وحانك سينا يتضبط آيات فاتحة يا قرآن كوين أيامك سينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا القرآن كإلهي وحكو سفينه يهي مدوين محكم متسوغن ولغا الشقيي أو إلهي سبحانه وتعالى وسوغي أحكامه سا يو وعدكيسا بلنقاتكيسا يو قودكيسا يو خيرك يو وناقة كل احجرة أيو إلهي كما قعابا كتاب أحكمت آياته كتاب إلهي سبحانه وتعالى وسوغي آياديس ومحكم وحي إلهي وكو سفيه القرآن كإنه يهي مهيمن كوبابية وكسرية كتبتي كهرية ودن نسخية وبدلية وحكمك وقدم بيا ونقنا حكمك كقرآن كتابك قرآنك إلهي وحكو سفيه القرآن كإنه يهي المهيمن وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه كتبتي كهريسين ويهي مهيمن بدلية وحي الله سبحانه وتعالى وكسف في كتابك قرآنك إنه يهي علي متسرية وحكيم ولب حكمة بضن وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم متسرية أي الله سبحانه وتعالى كسف في ولب حكيم أو حكمة بضن قرآن كولا ليال محل كيس واسرية شرفتي سنة واسريسا قدر كيس واسرية كتبتي إلهي وسودة شيكالو ربو إلهي كسريسي توراة يا إنجيل يا الزبور يا صحف إبراهيم وموسى
oo ilaahay uu soo dejiyey ayaa rabbi haddana wuxuu ka doortay kitaabkan qur-aanka inaga ilaahayna siiyey subxaanahu watacaala sidaa ogeed walaalayaal waa weynida iyo qadarka qur-aanka uu leeyahay mufasal ilaahay wuxuu ku magacaabay inuu yahay kitaab la kala saaray aayaadkiisa kitaabun fussilat aayaatuhu aayadihiisa iyo axkaamihiisu ilaahay kala tafsiiliyey oo kala saaray wuxuu ku sifeeyey ilaahay kitaabka qur-aanka 11 meelood oo qur-aanka dhexdiisa ah rabbi wuxuu ku sifeeyey qur-aanku inuu yahay carabi oo uu ku soo degay luqadda af carabiga inuu ku soo degay 11 aayadood oo ka mid ah aayadaha qur-aanka ayuu rabbi subxaanahu watacaala uu ku cadeeyey waxaa ka mid ah إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون كوبي طبعا كآية وحنا كلا بحينا ما دام كتاب كان القرآن كي ربي نوسو دشي وياهي أف عربي حرير كأنه لا نهاي أف كأف عربي إنه ياهي أف دين كان كسو دقي أف كإلهي سبحانه وتعالى ودورتي شريعة ديننا كتبتي هوريكم يسو دقي جيرن أف عربي على سبيل المثال تصال أهان كتابك النبي موسى لغو سو دجيه او توراة waxa lagu soo dajiyay afka cibriga اللغة العبرية وافka yahuud ay ku hadasho weeyaan laakiin inaga ilaahay kitaabkeena subhanahu wa ta'ala wuxuu u dooray inuu noqdo afka af carabiga ah marka afka af carabigu xiriir inaynu leenahay runtii aad u qoto dheer mar haddii ilaahay kitaabkeena quraanka rabbi uu u doortay subhanahu wa ta'ala وأفكاس وياهي أفكي شريعتين يدينتين وأف قلالود وأجنبي آنو أهين أيها إنو كلب حينا بريان وحين آبو مقلنا لدقالا كصابسا حق أف عربي أو مركا أف عربي تسؤال عن قفكوها الله أما أف عربي قف صوقره إن كأنما سي لغة يرى ساسيو دادك قار كودنا أكاها تنيد وناك لكن دادك قار كود وحي كتاي محي عربي لدقالا بكتا وأف عربي لإن قفوقيو وايو قفك مركا أف عربي اللي قفوقيو وقف اللي قفوقيو إنه فهم هذا الإله سبحانه وتعالى وقف اللي قفوقيو إنه فهمه الشريعة دي ويسوي إسكي إنه أفهمه وأخرسته وقف اللي قهر تاقيه هو ومربو واحد بهانت معي كلمة دي والبدا إنه قفة السير أو لغو معنيه مركا أف عربي إنك أفكينا أسهالة أن لنا هو أف صومالي وديدتك إنه أحوي كو هضلان أف عربي أف إنك أجنبي معه وأفكي شريعتين الدين كيني وأفكا إنه كنت كان إنه كو صلاة صلاة الله أكبر منه كحرنا السلام عليكم بينه كقبحنا إيدان كينه وعربي قرآن كينه وعربي وعدك يوعيدك يخطبك جمعات وعربي كل هذا وحين تسنيس حريرك أن لنا هاي أفكا أف عربي حريرك أن لنا هاي أفكا أف عربي وحا ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى قرآن كسفي أستام أديد ونكسر مبارك صدح آيات وكم آياتها قرآنك إلهي كسفي قرآن كونه يهي مبارك وإلهي أبركيه سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه مبارك كتابا نسود جنون بركيني وينبا إلهي سبحانه وتعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه وذكر أنسود جنين وبركي سنبا إلهيكم قعبه سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وكتاب بركيسا وأنسود جنين ستتكو أي أغفر في صدان آيات كيسية معاني ديس والله لا قضب كاكوباد وحن كقبحيا بركتها قرآن كإلهي سبحانه وتعالى وكسفي يويندا قف كستا قرآن كلن ولاده وحرير وناكسن ليشا بركتها سجارسة بركتها قرآنك يوناك قرآنك يسرينتا قرآنك إلهي قرآنك كسفي إنه سريه إذا قفك سفي عن قرآنك وقاتي سفي عن وعمل فلا إسنوح نغني قف سره وإلهي أسريسينه نبي نوح عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إلهي سبحانه وتعالى كتاب كان قرآنك تطبو كسريسية وكعزينية وكشرفية ويضع به آخرين كوكلنا إلهي وكد اللينية سبحانه وتعالى مركا قرآن كان ومد شرف بدن قفكي سفي عنه قبصدانا وحنا قلنا الشريف شرف بدن تصالي رضينا سوق هذا واحد شراء مقشين قراءات السبعة تضبط قراءة كلا دوان الله أخريه تضبط قراءة كلا دوان علماء أي كوكلا مقعبين الإمام نافع الإمام ابن كثير المكي نافع المدني أبو عمرو البصري إنه وحنا أخذنا قراءة حفص عن
عاصم الكوفي تضبدا إمام لبن أو كمدا أيون بعرب أها لبن أو كمدا تضبدا أي أها محي عرب وش أنت كلا عرب ما يعني ضد عجمة أما وحوية تصالحان أدونمو صومر يقول له حرية أو أما يسوق صومر أما مثلا أوجي صومر أدونمو لكن لبن أو كمدا تضبدا قراء السبعة أيون بعربها أنت كلا عجم بيهد ضد وحويا أدونمو صومري أبو عمرهم وليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولاء سيدورني الإمام الشاطبي رحمه الله مركا إخوان الكرام كتاب كان وشرف بدنيه قفك سفي عنه قبصة برتا كد ذا نوح نغني قف شرف بدن قضب كلبات إن تسني ولا الوينيدا إن تسني ولا الوينيدا عظمة قرآنك سودجستيسي قرآن كان ولا ليال شريف كأه شرفت بدن سودجستيسي حق إلهي بك سودكتي سبحانه وتعالى إلهي بس سودتشي سبحانه وتعالى كنتم آيادود وحكدو أي كو قرنتها أما إلهي وكعدي إنه إلهي سودتشي مروا إلهي يراهو أنزلناه مروا إلهي يراهو تنزيل مروا إلهي يراهو نزلناه مروا إلهي يراهو أنزل مادة التنزيل كي سودتشي أنت ميل صار القرآن كإن لقى سودتشي كنتم آيادود وحجارة أي كسوغن أو إلهي سبحانه وتعالى وكعدي waxaa sano waxaan ku tusinaysaa dadaalka Ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo ugu dadaalay quraankan iyo sharaftiisa iyo weynidiisa quraankan markuu soo degayay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu u dooray malaa'ikta malagi ugu sharafta badnaa ugu karaamada badnaa ugu sharafta weyna malak jibriil ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala u dooray الروح الامين Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku magacaabay inuu yahay ruux إنه يهي أمين آمن إنه يهي كريم شرف بدن إنه يهي مد أود بدن أي إلهي سبحانه وتعالى وكما قعب وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين انت أصف إلهي وحق صفيه جبريل وكليم رسول الله صادري كريم شرف بدن ذي قوة أود بدن ذي قوة عند ذي العرش مكين أو مد ولبا لقو كالسونية مطاع أو لا أطيعيه أو كسر ريا ملائكتك لو كشرف بدن أو ولبا هدنا أمين وآمن ورسالة دي أن خيامين ملق النوع عاسى أستامه يا صفات كالنوع عاسى يا إلهي سبحانه وتعالى ودور وملق سودة شني وقتي اللي سودة شني إلهي وحو دوري وقتي وجعليه بالرمضان أو بلاها كشرف بدن هبين كل سودة شنية إلهي وحو دوري ليلة القدر وهبين كأرمها لتشانجو يا ربي قدره سنة كرن وحدعية يا إلهي سبحانه وتعالى ودوره شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلهي وحو دوري بالرمضان ولبا بالشاسن إلهي وحسي دورتي هبين كليلة القدر قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر هبين كخير بدن كوناكسن كم بلود صدحي سديتن سنة يولي بدور بلود أي هبين كاس وكخير يوناك بدين هبين كاس إلهي سبحانه وتعالى والدور وحى علماء أي تلمامين عبد الله بن عباس وكله رضي الله عنه وارضاه هبين كا قرآن كإنه سودك يسوى أوتو دوبا يسوى قرآن كاملة أي هبين كا ليلة القدر أو سودك وحى إلهي وكسودة شيء قري إلى هذا بيت العزة قري شرفته وكيا له السماء الدنيا السماء الدو الدنيا marka ilaahay subhanahu wa ta'ala uu doonayo quraanka inuu soo dajiyo rabbi subhanahu wa ta'ala markaliya ma soo dajin rusushii hore oo dhan qaabka ilaahay quraanka uu ugu soo dajin jiray iyo qaabka quraankeena ilaahay nabi maxamed ugu soo dajiyay alayhi salatu wasalaam way kala duwanaayeen rusushii hore oo dhan markaliya quraankoodu isaga oo duuduuban ayuu rabbi u soo dajiyay مثلا نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام الهي ولا بلما 40 ليلة أفرتن هبين بقى إلهي سبحانه وتعالى وكلب لما جبل طور سيناء أما سيناء إنه بورتا كسبناده
kadib baa ilaahay subxaana watacaala towraad oo qoran oo ilaahay uu soo qoray ayuu rabbi siiyey nebi muuse calayhi salaatu wasalaam iyadoo dhammaystiran mar keliya bilow ilaa dhammaad innaga laakiin qur'aankeenna ilaahay subxaana watacaala kama dhigin wax mar keliya uu ku soo dejiyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa laga dhigay 23 sano mid soo degaya mufaraqan munajama 23 sano gudahood baa qur'aanka uu ku dhammaystirmay oo uu ka imanayay min as-samaa'i dunya oo intuu soo maqlo jibriil calayhi salaam ilaahay subxaana watacaala uu ka soo maqlo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu keenayay muddo 23 sano ah sida awgeed gaaladii maxay yidhaahdeen وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة قالوا waxay tiri quraanka maxaa maxamed oo hadda rasuul hadda tahay sidii rusushii horeba markii quraanka lagu soo wada dejiyay adigana maxaa markii lagu soo dejin waay quraanka ilaahay baa ka jawaabay subhanahu wa ta'ala كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا waxaanu sida u yeelnaba ilaahay subhanahu wa ta'ala linuthabbita bihi fu'adak si quraanka qalbigaaga aanu ugu sugno nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo markii hadii lagu soo dejin lahaa waxa ka fiican ba ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala isaga oo marba aayar inta lagu soo dejiyo marba aad weelayso oo marba aad xifdido oo dadkaagu marba iyo ummadaadu marba in yar ay xifdiyaan marba in yar ay qaybaan sida awgeed nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigeenu wuxuu ahaa ummi la yaqra wala yaktub waxna nabigu ma akhriyo waxna nabigu ma qoro wuxuu ka baqi jiray marka nabiga loo waxyoonay calayhi salaatu wasalaam war armad illa wadaaba sida awgeed kelmadda sida markuu jibriil ugu sheego quraanka nabiga calayhi salaatu wasalaam markiiba wuxuu isku day jiray si aan u ilaawin inuu kelmaddii markiiba carabkiisa uu ku dhaqdhaqaajiyo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam kelmaddii uu ku celceliyo isagoo nabigu ka baqaya calayhi salaatu wasalaam inuu ilaawaba tiina ilaahay baa ka shaafiyey maxaa lagu yiri la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه نبي محمد عرب كاغ أكد دجين بان القرآن لا تحرك به لسانك عرب كاغ مركب قرآنك أكد دقدقاجي أديك دغدغيو اسلا يانو كا بخسن انغا كو سغينا waa lagu xifdisiinaya ma ilaawi doontid ballanqaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam la siiyay marka walaalayaal quraanku soo degistiisi waa nooca waa mid shariif ah oo sharaf badan malagi ugu sharafta badnaaba ilaahay subhanahu wa ta'ala u soo dhiibay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu soo dejiyay waqtigii ugu sharafta badnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku bilaabmay bil ramadaan oo sharaf badan markasta uu soo degay jibriil baa nabiga barayay calayhi salaatu wasalaam وهكذا ما دام قرآنك ولقارك يهي تلقي أما بريس إلى ما أنت قرآنك وضد الصحة أهي إن لقو برتو أي تهي ووضد النبي كبرتو عليه الصلاة والسلام إنه قفك سميستو معلم حين كلبا حين قصد جبريل النبي عليه الصلاة والسلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحو لها معلم بولها معلم كيسوحوا جبريل يساقا بريش قرآنك وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم qofka maanta quraanka doonay inuu bartana waa inuu sameeyo macallin oo quraanka wax weey ka dhageysta ama ka saxa مثلا qofkii uu ka baranayo quraanki oo qof quraanki ka yaqaana ah kaasa wax weey taasa sunno inuu ah oo barashada quraanku way ka duwan tahay barashada cilmiyada kale oo dhan isagu wuxuu baahan yahay talaqi waa in qofku uu iska saxa oo uu kala kulma macallin khabiir oo khibradii aqoon u leh الفاظ القرآن يقابك القرآن كله قد واقعي وايو القرآن كأنه ما أهمت لقى بران كروح ويان أخرسك أكليه وايو واحد شرته وحياله قرن وأن لا أخرين واحد شرته وحياله لا أخريه وأن قرنين أياكو قرآنك سيدا أوجد محبوبة هي وإن دكت سماع وإن معلم وكاسحة لقولها كلمة ساء وآخر تنا سيدا وآخرين أو أحيانا كلام حين قصدا قدر كسد حاد ولا ليال وإن ذا القرآن كأنه تسنيه إلهي سبحانه وتعالى وحو تلمامه هدي القرآن كان لغو سود دجين لها بورها ما حكاذك هدي لغو سود دجين لها قرآنك بوره إني دلدلاع إلهي با إلهي سبحانه وتعالى وتلمامه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا هدان كسود دجين لها القرآن كان بورها هل كان النبي كسود دجين عليه الصلاة والسلام هدي بور لغو سود دجين لها بوره ويدلدلاع لهاين أو يخشوع لهاين ويندى يو ماموسك يشرفت القرآن كليه سبحان الله آيات كلي الله سبحانه وتعالى ولا يروح وتلمام إن جماداتك يو وحيالها
يعني aan nooleynba quraanka inay u hoggaansameen oo nabigu calayhi salaatu wasalaam Allah subhanahu wa ta'ala fi suurati ar-ra'd waxa uu tilmaamay hadduu jiri lahaa qur'aan dadka dhintay soo nooleen lahaa ka buu noqon lahaa hadduu jiri lahaa qur'aan buuraha lagu socodsiin lahaa ka buu noqon lahaa ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى هدو جري لها قرآن بورها لغو سعودسين لها أما دولك لغو چرچري لها أما دادك دنتا لغو نولين لها لكان هذا القرآن كم بو نغل لها قرآن كم أيو نغل لها إذن ولا ليال هدي بوري أسامين أيو بل كورم ولا لقلبي يدين كورم القرآن هو إنه سامية وتأثير يسامين وكويشة أو هجاجية قضبك أفراد ولا ليال وحيالها عجيب كوحكم ذا قرآن كان إلهي سبحانه وتعالى مركب وسود شيء وحسود شيء وقتي أفتهن ماذا يجبيدا لقد عربي أي مرة يسمى الآدي أدو سريسة نبي محمد عليه الصلاة والسلام تلكي وحياه ضد أف عربي آدي أدو جوا نكسن ضد وحوي عربي هير سرك جاري تحية تراب كجاري رنتي مقام عالي آدي أدو سرية هذا مع هذا إلهي سبحانه وتعالى وحسمي عرن يتحدي قرآن كان إنه كعري جن ينسب صدق جور بإلهي تذكرنا الله يعري مركب كباد محل يدي بل عر هدي أدرمين ويدين قرآن كان بل قرآن كان مثل لمدا عر لك على بالقول كاسو مركب كباد مثل لمدا لك على سقط ما يستر ويكسو بحواي عرنتي ولا فديدي وحل يدي بل تا هدات كري ويدين بل جن ينسيو الصوتك بل waxaad la kaalaydaan quraankan 10 suuradood oo kamida bal ar la kaalaya qul fa'tu bi 10 suwarin mithli tiina way leeyman kari waayeen taas markay taas dhacday awoodoodii ay ka jilicdayna waa laga sii khafiifiyay markaas la yiraahdo hal suurad oo kamida suuradaha quraanka bal hada ar la kaalaya tiina way leeyman kari waayeen ilaa maanta lama hayo qof hal suurad oo kamida suuradaha quraanka oo kale qof yiraahdo ama keena lama hayo maxay ku tusinaysaa قرآن كان إنه كيم حق إلهي سبحانه وتعالى وهي تحدي يعرنته وحسهلا ما إلهي ولا ليال معجزة النبي كان أوسي عليه الصلاة والسلام معجزوين كأنبياء هرقوحوا إلهي كقدوه أفر الرموت أفر قضب وربيين سبحانه وتعالى قرآن كان سبحانه وتعالى وكيالي ووحكدوا وخلاف سن معجزوين كأنبياء هرق إلهي سبحانه وتعالى أوسينش معجزوين كأنبياء هرق هدائن ويقرأ نبي موسى محل لسي وحلسية سقال معجزة أكل دول ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات سقال معجزة لسي محاوينا فأراه الآية الكبرى آية وين بجرتي محايا هيد قعنتي انتو قليو حوين شابك أدخل يدك في جيبك شابك ما كان حقه وسنوي اللي موبيلada iyo lacagta inuu ku gurano jeebku waa ka qort halkaas la goorinay gacantaada gali adkhil yadaka fi jaybik soo saar gacantiyo baydaa oo cad oo nuuraysa oo sida tiriigaas uu iftiimayo kala uu iftiimaysa mucjizo culus bay ahayd mucjizada labaad ushan uu tuuray ee noqonaysay maxay abeesada labada mucjizo ugu waaweyn mucjizaadkiis todobada mucjizo kan ilaahay wuxuu kaga warramay fi suurati al-a'raf fa akhadna alayhim at-tufana wal-jarada wal-qummala wad-dafadi'a wad-dama ayatin mufassalat labada mucjizo oo ah inuu usha intuu tuuro nabi Muuse alayhi salaatu wasalaam ushu ay isu bedelaysay ay noqonaysay abeeso iyo gacanta cadaanaysay wala mucjizo waaweyn labada mucjizo waaweyn gees markaynu ka eegno wax ma aha waaraya oo haraya laakiin mucjizada bil nabigeena hadaynu fiirsano alayhi salaatu wasalaam ilaahay subhanahu wa ta'ala nabigeena mucjizadiisu waxay kaga duwantay tii nabi Muuse iyo tii nabi Ciisaba waxay kaga duwantahay afar arimood afar taba ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku sheegay hal aayad ilaahay wuxuu awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun awalam yakfihim dadkam yani ku filnayn anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim anzalna alayka alkitab waxaan kugu soo dejinay ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabka quraanka oo yutla alayhim korkooda lagu akhriyo farqa koobaad afarta farqi ama afarta qodob ay u kala dhaxeeyay mucjizada nabigeena alayhi salaatu wasalaam iyo mucjizooyinkii anbiyadii hore mucjizada nabigeena ilaahay uu siiyay yutla wa mucjiza la akhriyo laakiin tii nabi Muuse ma la akhriyo jiray lama akhriyeen
shayga mucjizada ilaahay uga dhigay wuxuu ahaa ushu tuurayay ushu wax la akhriyo de ma aha gacantii cadaanaysay gacantu de wax la akhriyo ma aha marka taas waa farqiga koobaad farqiga labaad yutla calayhim maadaama la akhriyayo akhrintaasi waa akhrin waaraysa oo khaalid ah oo jiraysa ilaa qiyaami saaca taasina waa keentay mucjizada nabigeenu calayhi salaatu wasalaam inay noqoto mucjizo waaraysa oo khaalid ah mucjizooyinkii ambiyadii hore way baaba'een ushii nabi muuse meeday way baaba'day gacantii nabi muuse ee cadaanaysay meeday dee nabi muuse raacday calayhi salaatu wasalaam markii la aasay isagii bay raacday nabi ciise mucjizaadkii la siiyey maxay ahaayeen ilaahay wuxuu siiyey dadka dhintay inuu soo nooleeyo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu siiyey dadka bukaanka ah inuu waxa weeye uu shaafiyo ilaahay ba subxaanahu watacaala wax shaafiyo inuu u noqdo sabab oo gacanta intuu mariyo oo ay bugsadaan ka baraska qaba ka indhahala ee akmaha ah ee indhala-aanta ku dhasha waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid a zaman walba casri walba waxa ugu wanaagsan ee dadku xoogga ay saaraan wax la midoo ka wanaagsan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nabiga u siiyey maalan nabi muuse waqtigiisii waxa aad u badnaa falka iyo sixirka waqtigii nabi muuse aad waxa u badnaa in la isa sixro qofka saaxirka isu haystay caliim bikulli saxaarin caliim oo ta ku sugan markuu hadlayay fircoon ee uu lahaa iisoo ururiya culimada yuu haystay saxarada wax falaysa ee wax sixraysa ayuu u haystay inay iyagu yihiin culimo marka maadaama sixirku waqtigaa darajo weyn u gaadhay ilaahay wuxuu siiyey nabi muuse calayhi salaatu wasalaam sixirkii ay la yimaadeen wax ka weynba oo ka mucjizo badan oo waxa weeyaan waxoodii ka awood batay ayaa ilaahay subxana watacaala u siiyey waqtigii nabi ciise wax aad u badnaa caafimaadka iyo dadka waxa weeyaan culimada xagga caafimaadka ku dadaala iyo ayaa aad u badnaa oo awood badan runtii iyo baawar lahaa ilaahay muxuu siiyey nabi ciise calayhi salaatu wasalaam wax xaggii caafimaadkii oo kale ah wax la siiyey dadka xanuunsanay oo dhan inuu daweeyo dadka dhintay intuu yaro taataabto inay waxa weeyaan soo kacaan oo ay baraarugaano nafta ay waxa weeye dib ay ugu soo noqoto waxyaalo dadkii kale aanay qaban karin oo mucjizo oo layaab badan baa ilaahay subxana watacaala u siiyey nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waqtigiisii maxaa caan baxay gabayga iyo aftahanimada fasaaxada ilaa ay dhacday gabayada qaarkood sida dadku ay u majeerteen intay soo qaadeen inay ku dhajiyeen kacbada oo sida riwaayadka qaar ay tilmaamayaan mucallaqaadka aynu maqalno gabayga ama shicirka ah ee shicir imr ilqays iyo طرفة بن العبد iyo زهير بن أبي سلمى maxaa la yidhahdaa kacbadii ilaahay baa lagu soo dhejiyey sharaf iyo karaamo intay ka qabaan oo dadku ay maamuusayaan waxaa loo bixiyey almucallaqaat waxaa loo bixiyey almudahabaat kuwa wax weeyaan dahabka ah hadda waa gabay marka maadaama waqtigoodii aftahanimadu ay badnayd iyo fasaaxada af carabigu waxa ilaahay subxaanahu watacaala nebi maxamed uu siiyey calayhi salaatu wasalaam kalaam carabiya oo shicir iyo gabay marka la eego gabay oo dhan fadhiisiinaya oo tix iyo tiraab marka la idhaahdo intaba fadhiisiinaya oo ka asadiyey oo ka awood batay oo ka sharaf badan ayuu ilaahay subxana watacaala uu siiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam yutla calayh marka arrinta labaad mucjizada ilaahay nabigeena uu siiyey waxay noqotay khaalida mucjizo waaraysa oo ilaa qiyaami saaca dadku ay akhrisanayaan saddex ina fii dalika laraxmatan mucjizada nabigeena ilaahay subxana watacaala uu siiyey waa raxmad iyada laftigeeda raxmadaba waa naxariis qofkii isaga oo yaro wax weeye qalbigiisa maalmahan garan waaye ayuu quraanka akhriyaya markaasuu ilaahay ugu naxariisanaya quraanka oo qalbigiisa u hagaagaya oo islaax iyo wanaag qofka qalbiga uu ka helaya raxmad waa caafimaad waa shifaa qofku intuu xanuusto ayuu isku tufaya quraanka markaasuu ilaahay ku bogsiinaya biririx markaasuu noqonaya inna fi dalika la raxmatan qodobka afraad mucjizada nabigeena ilaahay subxaana watacaala uu siiyey ay kaga duwan tahay mucjizooyinkii ambiyada hore inna fi dalika la raxmatan wadikraa waano qur-aankeennu ilaahay subxana wataala wuxuu ka dhigay waano adiga oo wax weeyaan maalmahan aan yacni xagga dunuubta ama macsidu ay iska yaro badnayd baa laga yaabaa dhowr aayadood aad ku maqasho salaad in ilaahay subxana watacaala qalbigaagii uu khushuuc intuu ku soo dejiyo qalbigaagii uu ku hagaago waxaa laga yaabaa kitaabka musxafka qur-aanku aad soo qabsato aad akhrido ayaa ilaahay subxana watacaala kugu naxariisanaya wuxuu ka warramay sheekh la idhaahdo yaasir adawsari ka mid a culimada xaramka tujisa wuxuu anoo ku dul akhriyaya qur-aanka sheekh min mashaayikhina kamida nin kamida ahlulcilmiga ayaa waxaa noo soo galay buuri masjidkii arday waxaa noo soo galay buuri wiil dhalinyaro ah oo wejigiisu aad uu bedelan yahay saameyn badan ayaa ka muuqata wejigiisa iyo warwar walbahaar badan qof kaanama yani maalan noloshii ka quustay oo kale markaasuu sheekha intuu la soo fadhiistay wuxuu anoo qur-aankii akhriyaya ayuu sheekh igu akhri qur-aan markaasuu sheekh kuuri waan kugu akhriyaya intuu ardaygu dhammaynayo
sheekh yaasir inta uu dhameynay halka ay fadhiso isug iska akhriso adna inta quraanka sheekh yaasir baa ka warramayo ardayga marka quraanka akhriyay kadib wuxuu yiri inanka dhalinyarada uu soo kacay safka hore iska soo fadhiistay quraankii ayuu bilaabay dhowr safxadood ka saaray dhowr safxadood buu akhriyay 2 bog 3 bog 4 bog 5 bog ana intaaba quraankii ayaan ku dul akhriyay sheekh markan dhameeyay buu sheekhu igu orado inankii laha quraan igu akhri igu yad wuxuu inankii 3 bog uu akhriyay isagoo wajigiisa isbedelay oo wajigii hadda salaamayay ee hadda sheekha kula sheekh quraan igu akhri waxaan doonayaa quraan inaad igu akhridee wajigiisu aanu kiiba ahayn ayaan arkay buu dad markaas aan ku sheekha ku yeeray kaale uu soo kacay sheekhigu uu markaas uu sheekhu ku sheekh ana isku filan sheekh jazakallahu khair ana akhrisanay quraanka maxaa dhacay 3 bog uu akhriyay saameyn bay ku keenay qalbigiisa warwarkii iyo walbahaarkii oo dhibtii haysatay oo dhan baa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka dulqaaday sababtu maxay sababtu ma garanaysaa waayo markii hore qalbiga bukay qalbiguna hadduu bukoodo kaarjabin baa wax ka taraysa ma aha caafimaad kala wax ka taraya ma aha dhakhtar kasta oo dhakhaatiirta dunida kamid ku wareegtaa ma ku siin karaan caafimaadka qalbiga waxa hagaajinaya waa maxay xuska ilaahay subxaanahu wa ta'ala ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub xuska ilaahay subxaanahu wa ta'ala ba qalbigu ku degaa marka madaxu ku xanuuno kaarjabin baan isticmaalnaa Soomaa marka qofku gaajoodo waxbuu cunaa uu dhargaa Soomaa laakiin qalbigu markuu bukooday qalbigu waxa nusta ka waran dhakhtar aad u tagayso oo ku anfacaya ma jiro dhakhaatiirta dunida intii la yaqaanay way dhaafta waxa marka laga doonaya waxa laga doonaya qalbigu inuu ilaahay ku xirno xuska ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo wirdiga u badso soo fariiso masjidka soo weysayso tahaaro qaado 2 ragcadood tuko masjidka gal akhri 10 bog akhri 20 bog akhri wallahi wad isbedelaysa qalbigaagu waa isbedelaya quraanka aynu sheegnay ee buuraha bedelaya ee dhagxanta soo ridaya ee ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu tilmaamay dadka dhintay inuu soo nooleen lahaa hadii wax weeyaan aan oran lahayn soo nooleen quraanka noocaas wallahi walaalayaal qalbigeenu wax jilicsan weeyaan wax kooban weeyaan wax sahlan quraanka marka la akhriyo ee qalbigii uu ku dago quraankaas qalbigu waa saameynaya ta'thir iyo saameyn aad u weyn ayana uu kaga tagaya مثلا imika barakada quraanku ma aha aakhiro qofku inuu gaarayo adduunka qofku ka helayo barakada quraanka saxaabi kamid ah saxaabada nabiga kaleey salaatu wasalaam habeenada kamid ah isku quraan akhrisanaya oo ku tukanaya quraanka ayaa saxaabi xadiisku ku jira bukhari iyo muslim saxiixayn ku jira usayd ibn hudayr radiyallahu anhu warda wuxuu yiri faraskayga waan meel ku xidhay faraskayga waa meel igu xiran buuri inaan yaro aan dhalayna wuxuu yiri meel halkan uu jiifa gurigayga baan iskaga jira quraan baan akhrisanaya buuri quraan baan akhrisanaya waxaan arkay buuri caad daruurtii xagga sare saarneed ee ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu talagalay samada inay joogto oo soo degtay baan arkay buuri daruurtii soo dhawaatay faraskayga korkiisa ku soo dhawaanaysa buuri iyo faraskii oo cagabiriyoonayo oo isku dayaya kanama inuu baxsado oo kale orod dadna waxaan u baqay ilmahayga yaraa meesha jiifanaysa wartalo armaaba faraskani ilmahaaga yar uu ka ahay dadna wuxuu markaan arko farasku inuu cararayo waan aamusaa buuri dadna daruurtu dib bay u tagtaa dadna quraanka dib u akhriyo daruurtii hoos soo degtay buuri faraska korkiisa bay isku dayaysaa inuu ku fariisato waan yaabay subaxii baan nabiga u tagay kaleey salaatu wasalaam yaa rasuulallah xalay waxaan arkay daruurtii igu soo fariisatay faraskii korkii miyaad aragtay buuri nabiga kaleey salaatu wasalaam haa waan arkay nabigu wuxuu ku jawaabay tilka sakiina tanazzalat alquran wa sakiinadii iyo xasiloonidii oo quraanka aad akhriyeysay bay u soo degtay xaafid ibn hajar wuxuu oranayaa sakiinadu waa naxariis iyo malaa'ig wada socda marka daruurtan malaa'ig ba ku jirtay naxariis bay waday quraanka karaamada iyo sharafta uu leeyahay awgii ayay doontay inay u soo degtaba dabadna halkii faraskii yani isagu ka akhriyay quraanka ay doontay korkiisa inuu soo fariisato taas ama keentay de farasku maadaama waxa aanu haro u arag inuu ka baqo oo ka cararo marka walaalayaal karaamada quraanka iyo sharaftiisu waa wax dunida qofku uu ku arkayo wax dunida qofka laakiin marna ilaahay uu ku tusaya subhanahu wa ta'ala marna dal lagu tusayo laakiin awoodda lagu gelinaya oo muruqa lagu gelinaya oo umriga lagu gelinaya oo aqoonta lagu gelinaya oo ubadkaaga ayaa lagu gelinaya barakada quraanka iyo wanaagis walaalayaal ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabka quraanka ee uu sharfay ee rabbi subhanahu wa ta'ala uu doortay sharafta inuu sheegino oo dhan markasto oo qofku uu dadaalo oo uu ka mid noqdo ahlul quraan waa markasto ilaahay subhanahu wa ta'ala sharafta iyo karaamada quraanka inta qofku uu ka barto waa markasto qofka ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka waafajinayo walaalayaal ugu dambeyntii maadaama aanu aragnay sharafta quraanka iyo fadliga iyo karaamada ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yeelay
maxaa inala gudboon maxaa ina saaran idinka la weydiinaya su'aalaha maxaa inala gudboon ina saaran xataa naciisha maca alqur'aan si qur'aanka aynu ula noolaano sharaftiisa iyo karaamadiisa waynu ka dhergsannahay hadde maxaa ina saaran kow ya inaynu baranno qodobka koowaad ayna saarno maxay waa tacallumka waa barashadii qur'aanka oo barashadaasi ay soo gudagelayaan laba arrimood alfaadiisa qaabka loogu dhawaaqayo inaynu baranno macnihiisa iyo fahamkiisana inaynu baranno waa qodobka labaad tadabburkii oo fiirsigii qur'aanka tadabburka 4 aayadood qur'aanka ku jira ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala u faray war qur'aanka u fiirsada at-tadabbur waxa laga keenay min ad-dubur يعني لفظiga qur'aanku waa waxa ku soo qaabilsan weeyaan tadabburkuna waxa ka sii dambeeya lafdiga marka lagu raha qur'aanka ku tadabbur macnaheedu waa maxay lafdigan waxa ka dambeeya ka fakar weeyaan lafdigan waxa ka dambeeya duburkiisa ku jira xagga dambe ka fakar marka kaasina waxay keensanaysaa waa barashadii qur'aanka hore inuu sheegino weeyaan maxaa kale in la gudbo ahsant barakallahu fiikum dhamaantiinba ku amal falkiisi oo qur'aanka waa inaanu noqon unta waxaynu akhrino oo masaajida markaanu soo galno aynu akhrino laakiin suuqyadina markaanu qabanno qur'aanka mid aan ina xakameynaynin mid aan lagu amal falaynin waa inaanu noqon waa in lagu amal fala qur'aanku dhaqankaagii buu saxayaa usluubtaadii buu saxayaa socodkaagii buu saxayaa ilaahay muxuu yiri subhanahu wa ta'ala xagga socodka iyo sheegay aayada socodka tilmaamaysa iyo qaabka loo soconayo ولا تمشي في الارض مرحا adigoo isqaad qaadaya arlada socon socodkaaga quraanka sax codkaaga quraanku saxaya iyo qaabka aad u hadlayso aayada tilmaamaysa tuma codka sawdka xaga dambe in ankar la sawt sawt maxaa ka horeeyay waqdud min sawtik aayada soo jeeday ma sha Allah codkaaga hoos u dhig bal in ankar al aswat la sawt al hamir codka wax weey dameeraha ayaa ugu xunay sida dameeruhu ay wax weeyaan ay u cabaadeen adabkiina hoos u dhiga quraanku wuxuu saxayaa dhaqankaagi usluubtaadi akhlaaqdaadi macaamilkaagi marka quraanka inuu ku amal falno oo quraanka nolosheeni aynu bedelno maxay hadiga quraanka inuu ka dhigo maxaa kale in la gudboon xagga quraanka ya inaynu ku noqono quraanka طيب فاهمون اسمها التداوي باللي اسكو دويه سبحان الله وقضب هذا مهمه قران كله اسكو دويه قران كو عافمات الهي سبحانه وتعالى محوري وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين قران كوحنا كدغنا الهي سبحانه وتعالى شفاء يدو dadkeena markan waaqic umadeena Soomaaliyeed markan maanta eegno bal isku daweeyo quraanka way yarta isku daweynta isku daweynaya quraanka way yarta maxaa laga hormariyaa markiiba maxaa laga hormariyaa dhaqaatiirta iyo farmasiga iyo kiniinka iyo xumad waxaas laga hormariyaa marka wax kale oo dhan la waayaa marka dama leeyahay maxay bal ku tijaabiya quraanka waa tijaabo quraanka muxuu gabayso noqday tijaabo naga noqdo waa marka dambe wax kale oo dhan la waayo weeyaan بينما هذه لقوا بلا بلاها ويقينتين أي يضرب بوحده أو ما يسترنتها واحد ما يسكت كم بدليلها الحكم قرآن كوان لسكو حكمه قرآن بارك الله فيكم جزاك الله خير وقضم آدم مهمة قرآن كوان لسكو حكمه وقرآن كون نقضى دستور كلا لسكو حكمه إلا لقوا كلا بحي ومركز ما أنت إسقبنه أما إنه إسكو دعنه أما ريروه ما أنت إسقبته وحلقوا كلا بحي أو نقضى كتابك إلهي سبحانه وتعالى قرآن كون إنه نقضى ما همونت قروح بدن وجريجا إنه تعلق أو شرف بدن أو لقى بركة يسنيه قرآن كوان لسكو حكمه واقع إني نلشين وإنه سامية وتأثير يسامين وكل شيء حكى لك كم ده قاوك كلا قرآن كأين أولنا ولا نكرنا يا ولي وحيالها قارب أيقام مغن ولي الله تلمامي آخرتي سي سماه آخرتي سين لبتصدق آخرتي سي قرآن كلا بتصدق النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ورهوي القرآن كآخرية آخرة يسقوا إرجين يشفع قاضية أو إيه الكيس يشفع قاضية أيو إيمانية قرآن كحوله أصحاب قرآن كحوله طل تدو حجر أهل القرآن إلهه والقرآن كطلعه تدكاسي حيكو قارين شرفت النوع عاسى وشعيل كقرآن كفكر كقرآن هم يقول إني كردقان قرآن ميل علوس إني قاران والله ولا ليال كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه عثمان وحورنا لو سلمت قلوبكم قلب يدي إنه هطي بط قبل هيد أو قلب يدي إنه قار في يو أين نقلنا هايين لما شبعت من كلام ربكم كلام كربكم كما يدركتين
quraanka walaalayaal karaamaadkiisa iyo sharafta iyo khayrka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhex dhigay wax laga dhergaya marna uma aha marka akhriskiisa quraanka ila badsado quraanka in la saaxiibo oo saaxiib la noqdo aakhira quraanka markuu shafaaco qaadayo ilaahay wuxuu ku oranayaa ilaahayow qofkan nin iyo gabadh ku doono aan noqdee habeenkiisii baan soo jeediyey maalinkiisii baan rabbi u harraadsiiyey marka de qof quraanka la saaxiibay ayaa habeenkii ku soo jeedaya ama maalinkii sababtiisa wax way ku harraadaya walaalayaal yani markii la weydiiyey culimada qaarkood mucaasiriina war saxaabadii iyo dadkii salafkii wanaagsanaa sidee bay suurtagal u tahay gelin hore iyo gelin dambe iyo habeenba inay quraanka un sidaas miyaanay shaqaysan jirin miyaanay shaqo lahayn miyaanay dano lahayn miyaanay macaamil iyo tijaaro iyo ganacsi miyaanu jirin say suurtagal u tahay saxaabada la gelin hore iyo gelin dambe habeen buu akhriyi jiray sheekh muxuu ku jawaabay sheekh muxuu yiri qaabka ka adula macaamishaan oo kale ayay iyagu ay la macaamili jireen quraanka bas soo adigoo shaqaysto noloshaada ku dhex jira hadda soo mobil mar walba ma sidano baalka noocaas sidaas uma lihinun adigoo shaqaysanaya adigoo dantaada qabsanaya adigoo bal ka waran haddii inta mobilka aynu sinno oo kale haddaynu maalinkii siin lahayn quraanka imse goor buu khatimi lahaa maanta bish waa mise ramadaan mise maanta ya 17 shalay waxay 16 inaanu asxaab nahay oo raggii jaamacaddan wada dhigan jirnay ah oo doctor ah oo aanu isku fasal ahaan jirnay muddo 8 sano ah isagu imuu sheegay inuu isagu kale uu qarinaya laakiin waxyaalaha nin kale isku dhow yihiin oo isna sheekh oo jaamacad wax ka dhiga ayaa shalay wuxuu sheegay ninkii hebel soo taqaan ninkii hebel maanta waa 15 goor buu khatimay quraanka bishii ramadaan oo kaliya 15 marra 15 goor buu khatimay ayagu orno mustaxiil wax dhici kara ma ah way dhacday badii way dhacday in la tijaabiyo baa dhiman in tijaabiso ayun baa dhiman marka walaalayaal quraankan karaamada iyo khayrka ilaahay subhanahu wa ta'ala u dhex dhigay wax dhamaanaya ma laakiin qof walba isku dayo nasiib wanaagsan qofku inuu ka qaato akhrintiisa haday tahay barashadiisa haday tahay tusaalahan mesela fahankiisa macaanidiisa in la fahmo in la weeleeyo in lagu amal falo in la isku xukumo in ubadkeena dadka kale aynu barno oo lagu dhiiri geliyo waayo mar kastaba inaga ayaa wax ku noqonayna sharafta iyo karaamadaas quraanka adiga marka dambe xiriirkaas uu ku soo gaaraya adiga barakoobaya abu hurayra radiyallahu anhu waxa ka ansaxdo ka sugan guriga quraanka lagu akhriya waa barakoobaya shayaatiintu waa ka carartaa malaa'igta hooy ay u noqotaa guriga quraanka aan lagu akhriyinna guriga barakada ayaa ka tagta khayrkiisa ayaa yaraada shayaatiin baa soo xaadirta malaa'igta ayaa ka firdhato ka cararta bal ka warama guri hadii habeen muusigu ka baxaya ka waran muusig ba ka baxaya iyo waxa ka baxaya wax weeye kamano iyo wax weeye qurun oo dhan quraan waa ka fogaya laguma cibaadeysto markaas hadda waxa la oranaya ubadkii baa naga xumaaday ubadkii baa sidaan noqday ubadkii baa wax weeye waxa naga noqday taariku salaadiyo de soo tan gurigii soo ka noqday ma oo shaytaan meel shaytaanku uu soo dalxiis tago oo hooydo oo seexdo oo ka rakaabto soo ka noqday guriga laakiin guriga hadduu noqon lahaa guri ahlul quraan oo quraankii la daari lahaa oo dadka jooga quraanka akhrisan lahaayeen oo lagu cibaadeysan lahaa oo salaadii lagu tukan lahaa salaadaha sunnooyinka nabiga kaleey salaatu wasalaam waxyaala aad ka ugu dardaarmay waxa kamid ah war salaada sunnaha lagu tukado guriyiina ku tukada sallu fi buyutikum guriyiina ku tukada salaada sunnaha waayo ubadkii baa ka eeganaya dadkii baa ku dayanaya shayaatiintii baa ka cararaysa guriga malaa'igtii baa soo xaadiraysa khayrkii guriga ayaa badanaya guriga wuxuu noqonayaa khayrkiisu u bato oo dadkiisu bataan oo ubadkiisu bataan oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ubad khayr qaba ilaahay reerka uu siiyo oo malaa'igtu ay soo xaadirto oo shayaatiintu ay ka cararto ka kalena wuxuu noqonayaa ma oo shaytaan meel shayaatiintu ay isugu timaado marka walaalayaal barakallahu fiikum quraanku inoo ma baahna inaga u baahan inaga wax ku noqonayna inagu wax inoo taraya waa shayga kaliya ee quraanka dunida maanta inagala jooga ee hadalkii ilaahay ah subhanahu wa ta'ala aan makhluuq ahayn quraanku waa shayga kaliya aan makhluuq ahayn ee dunida maanta aynu kor saaranahay inagala joogo hadalkii ilaahay subhanahu wa ta'ala inta ataqaano ayasin qof wuxuu oran karaa anigu waxaan aqaanaa 5 suuradood 5taada badso waxyaalaha cajiibka waxa kamid ah taasaan ku soo khatimaya insha Allah aan ku soo gabagabeynaya ya ayyuhal muzammil إلهي محور سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه نبي محمد وهبينك كالبر أو بر بلغت دوني همينك إنه تكتو أما أد وحكودرتو أما أد وحير كدنتو علماء وحي تلمامين وقت كان النبي قال لي عليه الصلاة والسلام هبينك نصف الليل كدن هبينك نصف الليل تكو أما كبطو أما وحير كيراه suuradaha quraanka soo degay 4 suuradood kama badna
suuradaha quraanka soo degay waa 3 suuradood ama 4 suuradood maxaa la doonaya nabiga kaleey salaatu wasalaam 3 suurad ama 4 suurad inuu aayar u akhriyo siyaro degan uu akhriyo uu ku celceliyo ila nisfu leyl waxa la doonaya intaas oo saacadood in inta la akhriyo wuxuu 3 suuradood ama 4 suuradood sida awgeed walaalayaal waxa aynu kala baxaynaa quraanka dad 4 suuradood hada taqaano ay wax weeyaan inta 4 suuradood aad taqaano ay yaraysan ku celceli 4 taqaano ay yaraysan jis amma waa 17 suuradood weeyaan ay yaraysan jis amma iyo jis tabaarak waa 995 aayadood wax culus weeyaan ay yaraysan dad intaas kaliya hada taqaano awran anigu ma kul baan la mid noqonaya hebel oo wadaadku hada uu sheegay 15 goor uu dhameeyay iyo hebel kale oo la yiri wuxuu khatimay 10 goor iyo nin kale oo asxaabna ay hadheeyeen quraanka akhriyo 2 goor buu dhameeyay isagoo hadda ma kul baan gaaray raga awran sidaadu jis amma taqaana soo halka fariiso oo adigu hadda maalin walba 30 goor hadda akhriyo jis amma de qof waxa la mid noqonaysa quraanka dhameeyay hal maalin Soma in quraanku waa 30 jis marka haddaad jis ama 30 goor haddaad akhrido macnaheedu maxay 30 jis baad akhrido weeyaan 30 jis baad akhrido marka walaalayaal khayrka iyo wanaagga quraanka aynu ku baraarugno barakallahu fiikum ramadaanta inta inoo dhimanna aynu ka faa'iideysano khayrka iyo wanaaggaasna nafaheena aynu isula dardaaranno allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل القرآن لنا شفيعا يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن لنا شفيعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا ذا الجلال والإكرام دعاء مركن دعاء سنين وحين كإلا وين ولا لدينا مسلمين تأهل الغقم هذا يكون دباتي سم فلسطين دباتي هذا عرس مرمتي هيسته إلهي سبحانه وتعالى دبتا كدل قاضي إلهي سبحانه وتعالى دبتا كدل قاضي إلهي سبحانه وتعالى أو قرقاره إلهي أو هيليو اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في غزة الجريحة اللهم انصرهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن لنا إخوة لأجلك يقاتلون يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنهم يقاتلون لأنهم آمنوا بالله ورسوله فاللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشف مرضاهم اللهم داوي جرحاهم اللهم تقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة الجريحة اللهم انصرهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصرهم يا رب العالمين اللهم انصرهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك باليهود الظالمين الغاصبين اللهم عليك باليهود الظالمين الغاصبين يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا ترفع لهم راية اللهم اجعلهم للمسلمين عبرة وآية يا ذا الجلال والإكرام وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا